jasaaka allahu khayr sheekh magacaygu waa hodan ibraahim oo burco joogta ayay saa'iilkani su-aashiisa ku leeyahay haddii qof ay dilaan 10 qof ama ka badan sheekh miyaa loo wada dilayaa mise waxa kale ayaa lagu xalin karayaa oo weliba mid gaar ahina aanu qiranayn dilkaas haddii ay caddaato dad tirada leeg ama ka yar ama ka badan hal qof ka badan inay hal qof wada dileen dhammaantoodba waa haddii dee dadkii qofkaa dhiiggiisa lahaa ay qisaas doortaan dhammaantoodba waa loo wada dilaya oo dilka markaa qisaasta waajibiya hal qof hadduu geysto iyo milyan qof hadday geystaan waa isku mid xukunka qofka quri uu leeyahay ayay jamaacada iyo kooxduna ay leeyihiin adilada qisaasta tusinaysa ayaana guud ahaan u daliila cumar ibn khataab radi allahu canhu waqtigiisii ayaa magaalada sancaa inan lagu dilay cumar wuxuu yihi low tamaala caleyh ahlu sancaa laqataltum haddii reer sanca oo dhami dilkiisa ay wadaagi lahaayeen dhammaantoodba waan u dili lahaa taasaanay culimada badankooda u daliishadeen in jamaacada iyo kooxda loo qisaasayo halka qof oo haddii dhammaantoodba dilka ay baashireen haddii qaar ay baashireen qaarna ay sabab u ahaayeen waxaa la qisaasayaa kuwa dilka waxa weeyaan baashiray kuwa sababta u ahaa sida qofkii u qabtay oo kale ama u tilmaamay ama u soo kaxeeyey usoo shirqoolay isaga tacsiir iyo ciqaab kale oo aan qisaas ahayn ayaa la marinayaa waayo isagu dee faldembiyeedka laftiisa muu baashirin walmubaasharatu muqadamatun cala sabab in faldembiyeedka la baashiro oo la sameeyo ayaana xagga xukunka ka horeysa asal ahaan in sabab loo noqdo haddii ay dilkiisa ay ku ballameen oo ay isku waafaqeen qofkaasi inay dilaan dhibaatada ay u geysteen iyo nabarada ay u geysteen haba noqdaan kuwo kala sahleene dhammaantood isku xukumay noqonayaan arrinta ku saabsan midkoodna ma qirsana taasi waxay noqonaysaa dee in arrinta baadhitaan lagu sameeyo oo qof ka mida iyaga uu qirto ama dhammaantoodba waxa weeyaan ay qirtaan ama caddayn loo keeno ciddii dishay haddii guud ahaan qof iyaga ka midii inuu dilay la og yahay laakiin oo taasi ay caddahay laakiin kii ay qariyeen oo ay sheegi waayeen waxay noqonaysaa in dee dhammaantoodba la xidho oo ay xidhnaadaan ilaa ay sheegayaan kii dilka noocaasiya geystay mar haddii ay arrinta noocaasiya guud ahaan ay ku wada jireen walow ka mubaasharada sameeyey qofka dilay mid quraba ha noqdee wallahu aclam